بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد waxaan u tacsiyeynaynaa walaalahan hargeysa jooga ee reer somaliland suuqa gubtay ee suuqa waahayn oo weyn ilaahay subxaana wa tacaala samir ha ku arsuqo inta dhibaatada soo gaartayna ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo adduunku waa imtixaan waa la is imtixaamayaa imtixaankaasna waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala wuxuu eegayaa qofka inuu ku sabrayo in kale marka dhammaan waxaan leenahay reer hargeysa somaliland ilaahay subxaana wa tacaala umuuraha ha idiin fududeeyo inta dhibaatada soo gaartayna ilaahay subxaana wa tacaala dhibka ha ka qaado annaga maxaana la gudboon walaalaheena muslimiinta kow inaan u ducayno oo ilaahay subxaana wa tacaala in umuuraha uu u yasiro ducadu weliba waqtiga hadda aan ku jirno oo ramadaan ah oo shahrulqiyaam iyo shahrusiyaam inaan dadaalno oo aan ducayno walaalaheen midda labaad waxaan u baahannahay sidoo kale inaan taakuleyno dadka suuqa dad badan buu hayay boqolaal kun oo qof buu hayay oo ma aragtay qof kastaba uu ka faa'iidayay mid wax isiga mid qof uu sii biilo ama qof kale waxa waaye meesha masruuf ka dhigta ama qof shaxaada marka dhammaan meesha waa lagu noolaa waxaan u baahannahay in walaalaheen aan taakuleyno oo suuqa dib ma aragtay loo dhiso mid saddexaad waxa weeye inaan ka baaraan degno arrimahaas oo kale oo meelaha aan ma aragtay joogno iyo suuqyada in system wanaagsan loo sameeyo si markuu dab ama wax ay dhacaan ama calamity uu yimaado waxyaabaha oo kale dhibaatooyinka ay yimaadaan loo helo fursad ay gawaaridu iyo debdemiskaba meesha ay u maraan marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan leenahay hanoo fududay dhammaanteen walaaluhuna dadka muslimiinta waa walaalo oo way danqadaan kamathali ljasad alwaaxid weeye hal jir oo kale weeye haddii qayb laga qabto inta kale oo dhan baa xumad iyo maaragtay dhibaato soo gaaraysa marka runtii aad baan uga xunnahay dhammaanteen insha allahu tacaala aan u gurmano walaalaheen waa lagu yaqaanaa reer hargeysa iyo somaliland dhammaan iyo soomaalida guud ahaan in ay ma aragtay dhibaatada markay dhacdo ay meelaha kale u gurmadaan iyo dadka kale u gurmadaan marka insha allahu tacaala aan u gurmano walaalaheen u ducayno la qaybsano dhibaatada jazakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu